waxaynu nasiib u helay in aynu maanta halkan ku soo dhaweyno taliyaha ciidanka iyo madaxdan kale ee la socota si ay noogu soo gabagabeeyaan laba munaasabadood oo is saaran munaasabad xidhitaana iyo munaasabad furitaana. munaasabadda xidhitaanka waxa weeye dibcaddii koowaad ee dambi baarayaasha oo ka kooban 70 ayaa muddo ku jira 5 bilood ah ayaa maanta halkan waxaynu uga fadhinaa taliyaha iyo madaxda kale la socota inay noo soo xidhaan tababarkaasi muddada 5 bilood socday ee ay 70 ka baare muddada ay wax ku baranayeen kuwaasoo baranayay shuruuc kala duwan habka baarista xeerka habka ciqaabta xeerka ciqaabta ciidamada xeerka ciqaabta guud iyo shuruucda kale mataqaanay kala gaargaarka ah. sharaf loo maanta inaad halkan loogu timaado si aad noogu xidho tababarkii dambi baarista ciidanka booliiska ee ka koobnaa sida uu sheegay taliyaha dugsigu 70 xubnood iyo inaad noo furto dafcadda 3 ee ciidanka jadiidka ah. ilaahay baa mahad iska leh islaam baynu nahay nimcooyin badan oo kale aynu haysanaa ammaanka kowka ah iimaanka ku xiga nimcooyinka caafimaadka saddexa wax badan oo aynaan tirin karin ayaa kamid ah ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo ku xigsiinayaa dhamaanteen baynu ilaahay ka cabsano dad islaam aynu nahay kelmaddaas waa kelmadda waajibka hadduu qofku ilaahay ka cabsado qof la aamino isna aamina buu noqonayaa salaada iska tuko shanta waqtiyay ka tagin ninka imika la yidhi baara tahay iyo ninka kale la yidhi boolis baa tahay mas'uuliyadii qaranka oo dhan qaybtii ugu weynayd baynu sidanaa qalin jabinaysa ka qalin jabinaysa baarista criminal investigation raggaasoo muddo dheer baranayay practical imtixaan looga qaaday cilmi aad iyo aad u weyn bay ku hubaysan yihiin maanta kelmadeeda dardaarankii waxa weeyaan horena waynu u wada hadalnay adigu keligaa 1 iyo 2 iyo 3 iyo inaan boolis samati waxaynu isla garanay oo aynu hore isugu sheegnay maanta ay sheegayaan cadaaladu muraayada lagu eegaa inay booliska tahay cadaalada 70% booliska soo dhex martaa 50% 60 baaraha soo dhex martaa kiis qaran laga galay ama dila ayuu ninka baari kaliya qof uu mas'uul ka noqonaya arrin aad iyo aad weeye ma tihid kaliya calaamadii qaranka iyo sharaftii qaranka xambaarsantay sharaftii cadaaladda xambaarsantay waxa la idinka doonayaa oo anigu aan idinka doonayaa oo madaxda inaga sareysa idinka doonaysa oo qarankeenu idinka doonayaa oo adiga laftaadu aad doonaysaa bari baad doonaysaa in madax noqonaysaa inaynu ku dhimanno wixii aynu soo baranay cilmiga aynu baranay ee aynu maanta ku hubaysanay inaynu ummadda ugu shaqeyno annaguna waanu kugu ilaalinaa iyo madaxda kale waxa laga doonayaa raggiina maanta ciidanka booliskuna reform buu gelayaa waxaan doonayaa wada cusub oo aan baydh lahayna jeexdaan qolada cusub ee iyagana maanta aanu halkan ugu furayno waxaan u sheegayaa markaan qorayay dhalinyaro aad u tiro badan weeye oo dhowriye 20 jir iyo dhowriye ilaa 18 jir iyo 30 way ka hooseeyaan waanu sugay gobolada dhan waa laga soo qoray nin qura oo yiri nin walba nin balwad sheegtay ma jiro shuruudaha kamid ahay ninku inuu da'daa yahay inuu Soomaaliland yahay inaanu balwad lahayn qaadka iyo sigaarka iyo wixii kale xun inuu maaragtay ka yahay waxaan u sheegayaa laba qodob ballankii ay qaadeen lagama doonayo halkan nin qayla inuu dugsigan ka soo baxo tamam meel walba ka jira difcadiina waxaan doonayaa ciidamadii idinka horeeyay kuwii idinka dambeeyay ilaa riinkood dhigtaan laydinku xanto laydinku hadalayo saddex qodob weeye salaada tukada
balwada xune edeb darrada qaadku koow ka yahayna iska ilaaliyo waynu ka ballanay qaadna ma idinku soo qorin dhalinyaro bilaa qaadaan idinku soo qoray ta saddexaad waxa weeye cilmiga booliska ee idin anfacaya halkan la idin keenay ee shicibnimadii la idin kaga kaxaynayo saani u barta oo ka gungaadha